annagana aan kula garab taaganahayna runtii inuu noqon doono program xaqiiq ah marka odayaasha waxaan ku dardaarmi lahaa inay dowladooda iyo madaxweynaha ay garab istaagaan ugu dambeynta madaxweyne waxaad ii ogolanaysaa inaan u hambaliyeeyo axmed maxamed islaam hogaamiyaha jubbooyinka oo runtii muujiyey qarannimo siday soomaaliya qarankeeda kusoo istaagi lahayd dib u heshiisiinta horkacay oo galaaday runtii yani waxaan oran karaa fursad cusub uu sameeyey hadda intii la tartamaysay ayaa kulliba dowladda hadda hogaaminaysa arkaysaa chairmanka reconciliationka cabdi baaley wuxuu ahaa ninkii u tartamay inuu noqdo madaxweynaha jubbooyinka inta kalena way hadda bay la shaqaynayaan marka ugu dambaysana runtii anigoo wafdi aan u hogaaminayo wasiirka waxaan ugu tagnay oday barre yaan ugu tagnay meesha goobeen madaxweynahan uu soo dhaweeyay arrintaas marka waxay tusinaysaa runtii inuu diyaar u yahay shacabkan si dhab ayna u heshiiyaan marka waxaan is leeyahay dowladda way garab geli doontaa wayna caawin doontaa annagana runtii farrintaas waxaan u gudbin doonaa ururka hoggaankaada wanaagsanna waan sheegaynaa insha allahu tacaala soomaaliya midii nabad iyo barwaaqa iyo midnimo kusoo noqda allaha nooga dhigo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu